howlgallo si wada jir ah u fuliyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ayaa ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Jamaame. Ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidanka nabad sugidda Jubbaland guutada gurmad qaran ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyay tuulada Mayonda iyo tuulooyin kale oo ay ka mid tahay tuulada Kaban. Maleeshiyaadka khawaarijta Al-Shabaab markii ay arkeen xuduudda ciidanka ayay ka carareen deegaanadii ay maamulayeen. Ciidamada ayaana si nabadgelyo ah tuulooyinkii ugala wareegay iyagoo howlgallo kala duwan ka fuliyay tuulooyinkii ay la wareegeen. halkaasi ku sugan ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda Jubbaland guutada gurmad qaran. sidoo kale ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ayaa duqeymo kala duwan ka fuliyay Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, waxayna duqeymahan dhanka cirka ah lala beegsaday dugsi tababar ah oo lagu tababarayay mucaskar cusub oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta Al-Shabaab. dugsiga tababarka waxa uu ku yaalaa duleedka degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe oo degmada kaga dhanka waqooyi. waxaa halkaasi lagu khaarijiyay in ka badan 110 ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta. sidoo kale duqeymaha ayaa waxay ka dhaceen tuulooyin hoos yimaada deegaanka Janaac Cabdalle, halkaas oo maleeshiyaadka khawaarijta jab xooggan lagu gaarsiiyey. Shirwaa Cumar, warbaahinta qaranka, magaalada Kismaayo.